bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. daawadayaal kusoo dhowaada wararkeena galabnimo. qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah qarax miino oo la kacay gaari dadweyne wadada u dhaxaysa Ceelwaaq iyo Mandheera. maamulka Galmudug oo u qabtay 48 saacadood dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed. maamulka Puntland oo cayriyay ajaanib ay ku eedeeyeen musuqmaasuq iyo wax isdaba marin. Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo dhawaan la dhigay cisbitaalka Digfeer. sirdoonka dalkani Kenya oo shaaciyay in dagaalyahanadii abid ugu badnaa ee Al-Shabaab ay gudaha u soo galeen dalkani Kenya. dowladda Djibouti oo bayaan ka soo saartay maraakiib dagaal oo la sheegay inay Iran leedahay oo ku sugan biyaheeda. qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan wararkeena caawa. haatana u diyaar garooba isagii oo fidsan. wararka ka imaanaya deegaanada u dhaxeeya Mandheera iyo Ceelwaaq ayaa sheegaya in qarax uu haleelay gaari dadweyne ay saarnaayeen, waxaana qaraxaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan. saraakiisha ciidamada ammaanka dowladani Kenya ayaa mar kale ku dhawaaqay in hakad la geliyay gaadiidka isaga kala gudba magaalooyinka Mandheera iyo Nairobi, waxaana qaraxii ugu dambeeyay uu sababay dhaawac dad iyo burburka gaari. saraakiishan ayaa sheegay in gaadiidku gebi ahaanba aysan ka sii shaqayn doonin deegaanada u dhaxeeya Ceelwaaq iyo Mandheera, waxaana halkaasi ka bilaaban doona baaritaano lagu saarayo waxyaabaha qarxa oo la sheegay inay Al-Shabaab halkaasi ku aaseen. saraakiisha ayaa sidoo kale amar ku bixiyay wadayaasha gaadiidka inaysan ku safri karin wadadaasi xataa haddii ay la socdaan ciidamada ilaalada ee loo xilsaaray ammaanka wadadaasi ilaa ay amar kale ka helaan hay'adda booliska. dhinaca Mandheera sidoo kale waxaa lagu amray gaadiidka waaweyn iyo kuwa kaleba in aynan dhaqdhaqaaq samayn karin ilaa laga nadiifiyo jidka. haddii lasoo dhaafay ayaa la joojiyay gaadiidka Mandheera iyo Nairobi markii xubno ka mid ah Al-Shabaab lagu arkay jidka u dhaxeeya magaalooyinkaasi. shalay ayaa dib loo furay, haddana iska gelinkii dambe ayuu amarka soo baxay kadib markii gaari bas ah ay miino la kacday, inkastoo aysan jirin khasaare nafeed marka laga reebo dhaawacyo iyo burburka gaariga. wararkan ka helayna deegaanada Galmudug ayaa sheegaya in madaxa xukuumadda Galmudug uu amar ka soo saaray dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed. sida ay baahisay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho, madaxa xukuumadda ayaa dadkaasi ku amray inay muddo 2 maalin ah kaga baxaan deegaanada Galmudug, gaar ahaan deegaanada ay ka taliso Ahlu Sunna. dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ku nool deegaanada Dhuusamareeb iyo Guriceel ayaa la sheegay in ay amarkan u saameyn doono, waxaana laga doonayaa inay muddo 48 saacadood ah kaga baxaan deegaanada Galmudug. xogaha la helaya ayaa sheegay in ujeedada ka dambaysa ay tahay kadib markii lagu eedeeyay inay caqabad ku yihiin ammaanka deegaanada Galmudug, gaar ahaan Dhuusamareeb iyo Guriceel. Ahlu Sunna ayaa dagaal adag kula jirta Al-Shabaab, waxaana dadkaasi lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab. lama oga ujeedada dahsoon ee ka dambaysa amarkan ka soo baxay Galmudug, balse waxay caqabad ku noqon doontaa dadka ku dhaqan deegaanadaasi Galmudug ee ku abtirsada Koonfur Galbeed. mana jirto wax jawaab ah oo maamulka Koonfur Galbeed oo arrintani ka bixiyay. sidan oo kale waxaa horay shacabka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed looga masaafuriyay deegaanada Puntland, walow markii dambe ay yaraadeen takoorka dadkaasi lagu hayay. maamulka Puntland ayaa amar ka soo saaray 2 sargaal oo ajaanib ah, kuwaasi oo la shaqaynayay hay'ado caalami oo ka howlgala deegaanada ay ka taliso maamulkaasi. saraakiisha ayaa la shaqaynayay hay'ado caalami ah, waxaana lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo wax isdaba marin, walow maamulka Puntland uusan cadaynin musuqmaasuqa ay galeen nooca uu yahay. 2 ruux ee la masaafuriyay ayaa magacyadooda lagu sheegay Napoleon Very iyo Nelson. Napoleon Very iyo Nelson oo ka kala tirsanaa hay'adaha World Vision iyo Relief International oo ka howlgala deegaanada ay ka talisay Puntland. Very ayaa wuxuu ahaa madaxa howlgallada ahna madaxa xafiiska Puntland ee hay'adda World Vision, iyo Nelson oo ahaa ku-xigeenka madaxa howlgallada hay'adda Relief International. Napoleon ayaa lagu eedeeyay inuu ku kacay falal musuqmaasuq ah iyo sidoo kale inuu ku xadgudbay nidaamka shaqaalaysiinta. Nelson oo isna ka tirsanaa hay'adda Relief International ayaa lagu eedeeyay inuu isna iska indha tiray shuruucda waddanka sida ogolaanshaha ruqsadda shaqo ee dalka iyo dalku joogaba.
waa saraakiishii u horreeyey oo ajaaniib ah una shaqeeya hay-ada caalami ah oo puntland ay deegaanadeeda ka cayrisa tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee maamulka puntland siciid cabdulaahi deni. sheekh mukhtaar roobow abuumansuur ayaa la dhigay isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho 15 ramadaan kuna beegneyd 21 bishii lasoo dhaafay ee May kadib markii uu xanuun asiibay. sida ila wareediye lagu kalsoon yahay ka helayna abuumansuur ayaa ka xanuunsaday kaliyaha waxa uuna isbitaalka ku jiray muddo 3 maalmood ah. waxaa la dhigay qayb gaar ah oo loo diiday shaqaalaha inta badan iyo guud ahaanba dadweynaha waxaana arrintiisa gacanta ku haya dhakhtarka ugu sarreeya digfeerkaasi oo u dhashay dalka Turkiga. sheekh mukhtaar roobow oo hadda wanaagsan oo xaaladiisa ay hagaagtay ayaa la sheegay in xanuunkiisa kaliyaha uu horay u qabay isla markaana uu marmar ku soo kaco. markii uu ka soo baxay al-shabaab ayaa sidan oo kale waxaa horay loo dhigay isbitaal waxaana sababihii uu dowladda ugu soo biiray la sheegaa inay qayb ka ahayd arrintan caafimaad. dhaqaatiirta abuumansuur ayaa sheegay inuu wanaagsan yahay waxayna u qoreen dawo iyo dhaqaatiir gaar u ah oo la sheegay inay siin doonaan dawadiisa sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha cisbitaalka digfeer. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka dowladda Soomaaliya oo arrintan ku saabsan. saraakiil ka tirsan NISA oo aan weydiinay ayaa sheegay in aynan wax xog ah ka haynin arrinta abuumansuur isla markaana aysan ogaan karin qof kasta balse gacanta ay ku haysa mas'uuliyiinta ugu sarreeya ee dowladda. warbaahinta dowladda Kenya ayaa shaacisay in xubno ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen deegaano ka tirsan Kenya waxaana sii korortay cabsida laga qabo weerarada ay ka geystaan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. ku dhawaad 40 dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay inay gudaha u soo galeen dalkani Kenya waxayna warbaahintu shaacisay inay ka gudbeen dhanka xuduudda Soomaaliya toddobaadkii la soo dhaafay. warbaahinta Kenya ayaa shaacisay in ay hay'adda sirdoonka Kenya ay ka heleen macluumaad ku saabsan in xubnaha al-shabaab ay gudaha u galeen dalka. kooxdan ayaa la rumaysan yahay in ay ku dhumaalaysanayaan deegaano hoos yimaada magaalada Lafey ee maamulka Mandera waxaana laga cabsi qabaa in ay wadaan weeraro aargoosi ah oo daba socda sargaal toddobaadkii hore looga dilay tuulo lagu magacaabo Dawadhooba. sirdoonka dalkani Kenya ayaa laamaha ammaanka ku wargeliyay macluumaadka kooxda gudaha u soo galay Kenya waxayna sidoo kale ka digeen inaysan yaraysan macluumaadka lala wadaagay laamaha ammaanka ee Kenya. taliyaha booliska Mandera Jeremiah Ole Kosiom ayaa sheegay in ay ka warqabaan al-shabaab in ay deegaanada Mandera hoostaga ku dhumaalaysanayaan wuxuuna sheegay inay diyaar u yihiin inay ka hortagaan. dhanka kale waxaa gabi ahaanba la joojiyay isu socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka Mandera iyo Nairobi ee dalkani Kenya iyada oo laga baqayo weerarada inay al-shabaab ka geystaan. dowladda Jabuuti ayaa beenisay warar soo baxay oo sheegaya in biyaheeda ay u ogolaatay maraakiibta dagaalka ee dalka Iiraan. safiirka Jabuuti ee dalka Sacuudiga Bamakrama ayaa si kulul u beeniyay in maraakiib dagaal oo Iiraan ay leedahay ay ku sugan yihiin baddeeda wuxuuna ku adkaystay in dalka Jabuuti ay weli xiriirkii ay u jartay Iiraan uu sidiisii yahay. ma jiro wax maraakiib dagaal ah oo Iiraan ay leedahay oo ku sugan biyaha Jabuuti ama dekedeeda ayuu Diyaabudiin Bamakrama ku yiri bayaan uu soo saaray wuxuuna intaasi ku daray in uusan wax xiriir kala dhaxaynin labada dal. bishii Janaayo ee 2016 ayaa Jabuuti la safatay Sacuudiga xiriirkana u jartay Iiraan kadib markii dibadbaxayaal ay gudaha u galeen safaaradda Sacuudiga ee Tehran iyo qunsuliyadii magaalada Mashhad taasi oo ka dambeysay markii ay Sacuudiga dileen wadaado Shiica ah oo caan ahaa.